magaaladan ku taalla waqooyiga Talyaaniga waxaa gebi ahaanba laga duldhisay badda, laakiin qaybta ugu yaabka badan waa inay jirtay kumanaan sano iyadoo ku tiirsan alwaax. كيف؟ Venice. waxaa ka soo gudbayay horteeda gurigan waxay aasaaskii ku dhiseen biyaha kumanaan sano ka hor kadib markii ay ka carareen dhulkan markii boqortooyadii Roomaanku dhacday. magaalo dhan ayaa badda laga duldhisay oo ay ku mahadsanayeen farsamadan, waana farsamo caqli badan oo weli shaqaysa ilaa maanta, waxayna ka mid noqotay magaalooyinka ugu caansan dunida. tani oo Venice, boqoradda badda Adriatic. tani waa magaalada Venice ee ku taal Talyaaniga iyo dhagaxa dahabiga ee sihirka waqooyiga Talyaaniga. bundadan ayaan maalin kasta maraa. bundadan kaasi waa gurigayga, halkaasina waa barxaddiisii. laakiin sidee dadku halkan ugu nool yihiin maanta? Buongiorno, salute! Buongiorno signorine e signore, Tarantella Venezia. ku soo dhawow Venice, waxaan kuugu wareejin doonaa magaalada ugu quruxda badan dunida. waxaan joognaa waqooyiga Talyaaniga, waxaan ku sii jeednaa meel aan lahayn waddooyin ama gaadiid. keliya waxay leedahay kalnaalo biyo ah. waxaan gaadhigeenna dhigan doonaa public parking 3 maalmood ayaan ku dalxiisi doonaa magaaladan, kadib ayaan u soo laaban doonaa. sidaasoo kale maalin cusub ayaa ka bilaabmaysa magaaladan. tiirarkan alwaaxda ah waxaa loo isticmaalaa in doomaha lagu xidho baarkin camal. dadku waxay u guuraan goobo kala duwan. doonidu waxay joogtaa saldhigyo kala duwan. qaar ka mid ah rakaabka way ka soo degaan, qaar kalena way raacaan. waxaba yaraatee gaadhiyey ma jiro magaaladan, waxayna jirtaa 1000 sanno. waa magaalo si buuxda u shaqaynaysa. waxaa ku yaal bangiyo iyo kafteriyo. waxaan dalbaday espresso. halkan dadku waxay bunka ku cabbaan istaagga, hal xabo oo keliya intaad dalbato ha fadhiisan ee istaagga ku dhammaysa midhaada. tani waa kafteriyada ugu da'da weyn dunida, welina way shaqaysaa. fiiri meeshan, waxay ku taallaa bartamaha xagasha magaalada. kafteriyadani waxay jirtaa 300 oo sanno. tani waa kafteriyada ugu da'da weyn dunida. 1720 is the first in the world. meel kasta waxaa ka buuxa maqaayado. waxaad halkan ka fadhiisan kartaa maqaayadda adoo cunaya ayaad dhankana ka daawanaysaa kanaalka iyo doomaha socda. waxay sidoo kale leedahay mid ka mid ah tiyaatarada ugu caansan dunida oo biyaha laga duldhisay. tani waa doonta qashinka magaalada ka qaada. habkanina waa sida ay magaalada uga nadiifiyaan qashinka. wax kasta waxaa lagu qaadaa doomaha ilaa goobaha dhulka un mooyaane, iyagoo isku xidhan. wax walba sidan ayaa loo dhaqaajiyaa. waa magaalada ugu jidgooyada badan iyo sidoo kale ugu kanaalada badan. يا إلهي qaabkani waa noloshooda maalinlaha ah, sida ay ugu guuraan meel ilaa meel kale. sidoo kale sida dalxiisayaasha loogu wareejiyo magaalada. buundooyin ayaa meel kasta ku yaal. jasiiradahan waxaa isku xidha 176 kanaal. waxaa sidoo kale ku yaal in ka badan 400 oo buundo. Buongiorno! dadku waxay ka gudbaan maalin kasta iyagoo ku socda lug ama doon. waa magaalada ugu buundooyinka badan. midka ugu caansanna waa kan gadaasheeda ku yaal. buundadan waxaa la yidhaahdaa Rialto. waa tan ugu caansan Venice. waxaa la dhisay qarnigii 16aad. buundada ugu dheer waa Liberty Bridge. dhererkeedu waa 3.85 kilomitir. waxay kugu xidhaysaa magaalada taariikhiga ee Talyaaniga.
waxaan kiraysanay gurigan kaas oo daaqadda ka fiirsan karta kanaalka. waxaan ku kiraysanay 450 euro halkii habeen. fiiri muuqaalkaas, inta badan dadka halkan ku nool waxay ka tagaan guryahooda oo maalinkii ay ka kireeyaan dalxiisayaasha iyagoo adeegsanaya Airbnb. طريق Airbnb. kadib waxaan u baxnay inaan la kulanno nin dhalinyaro ah oo magaalada ka tirsan si uu noogu muujiyo sida noloshu ka tahay halkan. wuxuu nagu wareejin doonaa magaalada. Walking or the water bus? No bicycle? No. In Venice, no. Only outside of Venice. Okay, this is Nick from Venice. Maybe he's one of few people Few people, yeah. left here, like young people. How old are you? I'm 18 now. كثير من الشباب تركوا فينيسيا والسبب I think because a lot of tourists, the cost of living is pretty high. Yeah. But sidoo kale fursado badan ayaa ka jira meel ka baxsan Finite. hadda waxaan u soconaa gurigayga oo ku yaal bartamaha magaalada Campo Santa Margherita oo ah fagaaraha weyn, mid ka mid ah kuwa ugu weyn Finite, halkaasoo aan kula ciyaari jiray kubadda cagta saaxiibaday. halkan aad bay u wanaagsan tahay. la città più bella del mondo. tani waa mid ka mid ah doomaha asxaabtayda. Okay. dadka intooda badan madoon bay leeyihiin halkan. intooda badan waxay inta badan ku socdaalaan xeebta mid jasiiradaha kale. madoon qoys bay la mid tahay oo aad u isticmaashaan. keliya madadaalo ayay adeegsadaan, qaar kalena shaqo ayay ka dhigtaan. qoyskiina mise doomada ayuu leeyahay. hal doon oo keliya. qof kasta ma isticmaali karaa. dhammaantood waa sida baabuur. qof walbaaba baabuur buu leeyahay. sidee ayaad noloshaada maalinlaha ugu qaadataa halkan? keliya ma ku wareegtaa ma ku dhex socotaa karnaaladan? maalin kasta buundadan ayuu dugsiga u soo maraa. buundadan ayaad ka raacaysaa doonta, kadibna dugsi. helitaanka guri wuu adag yahay. dad badan halkii ay kirayn lahaayeen ama iibsan lahaayeen waxay guryaha u isticmaalaan sidii Airbnb. halkan waa Campo Santa Margherita oo u muuqata meel ka fiican. Margherita miyayna cunto ahayn? Also, kaasi waa gurigayga, halkaasina waa barxaddiisii. it's gonna be dark. marka adigu ma ku fahantaa magaaladaadan? aad ayaan ugu faanaa. Venetiankana waa kuwa aad u faan badan. marka biyihii soo fatahaan, kabahan ayaan isticmaalnaa. tani waa kooxda Venice. waxaan joognaa halkan. Yeah, every day I need to go. maalin kasta waxaan leenahay waa maalin fiican. halkan kaalay oo qoda ku cun. tani waa sida nolosha maalinlaha ee dadka deegaanka. waa gondrak doomaha gaarka ah ee sumadda waa Finite. soddon daqiiqo oo keliya haddaad ku safartid waxaad iska bixinaysaa 90 euro. sidee ayaad uga heshaa magaaladan? aad baan uga helaa. waxaan u malaynayaa inay tahay magaalo gaar ah. aad ayaan ugu faanayaa inaan shaqadan qabto. taasi waa jaamacadda biyaha ku dhex taal. gaadhitaankeedu ma fududa. qarnigii 5aad, xilligii burburkii imbaradoriyadii Roomaanka iyo markii qabiilooyinkii Huunku ay ku duuleen waqooyiga Talyaaniga, magaalooyin badan ayaa la burburiyey. dadku waa carareen, waxayna isku qarinayeen dhul dhagaxyada Finite ka mid ah, iyagoo magaalyo ka raadinaya jasiiradahan yaryar. markaas sidee bay u maareeyeen inay magaalooyin dhan ka dhisaan? sidee bay Finite uga dhiseen dhul mudaysan? dhulka Venice wuxuu ahaa mid dhagax iyo biyo ku milmay. waxay la dhigeen 1500 sano ka hor. waxay keeneen alwaax xoog leh oo ka timid Croatia, waxayna si qoto dheer u geliyeen dhulka ilaa 5 mitir ayay hoos u qodeen. aasaaskana waxay ku dhiseen dhagax tiir ah, waana nooc ka mid ah dhagaxyada biyaha u adkaysan kara. haddii aasaaska si sax ah loo dhiso, dhismuhu wuu sii jiri karaa sannado badan. sirtan ayaa ah in alwaaxdu ay mar walba biyaha ku jirtay oo aan hawada ayna is arag. waqti kadib alwaaxii ayaaba isku beddelay qaab dhagax ah, waxayna taageertay magaalada in ka badan 1,000 sano. halkan waxaan si toosa uga fiirsanaynaa magaalada geeskeeda kale. waa meel aan si fiican loo qiimaynin. waxaan la kulannay ganacsade Irish ah
oo sannado badan ku nool Fiinay isla markaana aan dhinacba u dhaafin magaaladan. waxaan go'aansaday sidoo kale waxaan ku daalay ciriiriga iyo buuqa marka waxaan u soo guuray Fiinay sababtoo ah ma doonayn inaan arko baabuuro badan waad nasanaysaa garbahaagu sidoo kale way nasanayaan waadna riyoonaysaa waa magaalo riyo leh waxaan hadda taaganahay aasaaskii magaalada marka biyaha cabitaanka ee nadiifta ah waxay ka yimaadaan xaggan. waan kuu sheegi doonaa dhibaatada Fiinayga ayaa ah in baddu ku wareegsan tahay biyahan milixda leh ma cabbi kartid sidaan arkay ma aha kuwa nadiifa halkan waa goobtii cuqaasha magaaladu ka yimaadeen markaa maxay sameeyeen waxay ceelal ka qodeen fagaarayaasha dadweynaha hoostooda waxayna ku dabooleen lakab dhoobo ah si biyaha milixda leh aysan u soo gelin kadib waxay ku buuxiyeen ciid iyo qururux si ay u sifeeyaan biyaha roobka loogu jiheeyo furitaanno yaryar. ينزل باتجاه فتحات صغيرة. halkan fagaarayaasha ceelal hoos u qodan ayaa ku yaal biyuhu waxay ku ururi jireen taangiyada hoostooda iyagoo sifayn jiray kadibna sidaa ayay ku cabbi jireen sidaas ayayna ku heleen ilaa 600 oo ceel oo biyo nadiif ah. maanta si kastaba ahaatee biyaha la cabo waxaa maalin kasta loo qeybshaa iyadoo loo marayo nidaam kanaalo iyo tuumbooyin ah. biyaha kale waxay ka yimaadaan meel ka baxsan magaaladan Water you get from water boat. ceelashii hore waa la beddelay oo waxayna ka dhigeen kuwa la soo booqdo waxaa halkan ku nool dad kuwani waa guryo dadku halkan waxay u isticmaalaan baarkin ku meel gaadha Or parking spot. kuwani waa meelaha doomaha la dhigto oo dhammaantood So it's like gold. qof kasta uu rabaa meel uu baabuurkiisa dhigto xataa marka laygu dadku mararka qaar halkan ku meelgaadhka ayay sii dhigtaan doontooda mararka qaarkoodna waad arki kartaa carruurtooda oo imanaysa sababtoo ah dhammaan carruurtu waxay leeyihiin doon nuqaasa meeshani waa mid aad u farshaxan badan subax kasta dadku waxay soo saaraan qashinka mana dhigi karaan waddada way garaacaan albaabka waxayna leeyihiin doon qashinka qaada subax kasta waa inaad diyaarisaa qashinka Yeah, how they made it like that's clean. It's clean. It's clean. Yeah. qofna kuma tuurayo shay wasakha ama wax kale keliya dalxiisayaasha oo ilaawo mooyaane. aad bay ugu faanayaan magaaladooda sababtaa 20 sano ayaan ku noolaa niyo halkan ayaa ka walicas waana mid weyn ma u malaynayo wax kasta ay kala siman tahay Fiinays magaaladan ma laha nidaamka qubayska dhexe kanaalada laftoodu waa tuubooyinka qashinka waxay leeyihiin nidaam u gaar ah oo qashinka qaada waxayna markaad musqusha gasho biyaha ay u dirayaan webiga And we go into the canal. qarnigii 16aad magaaladan hoosteeda ayay ceelal dhagaxa ka qodeen kuwaasoo biyaha wasakhda ah si toos ah ugu rida kanaalka halkaasoo mawjaduhu 2 jeer maalinkii ku tuurayaan. يوميا. sagaasheemiyadii waxay bilaabeen inay taagiyo qashinka ka dhigaan qaar ka mid a dhismayaasha hoostooda laakiin qaar ka mid a guryaha weli si toosa biyaha ay ugu shubaan taasi waa sababta kanaalada ay weli u sii shaqaynayaan xilliyada kuleylka ee xagaaga ama marka baddu hoos u quusto ayaa la dareemaa ur. Dopo una bottiglia di Lugana. waa ciidanka difaaca rayidka ah دفاع المدني. ma aha wax qarsooni Fiinayga leedahay dhibaato biyaha tahaada magaaladan nabhaantii waa la qalabeeyey si ay ula tacaasho biyaha sare laakiin fatahaadaha sanad walba way sii xumaanayeen hadda waxay leeyihiin nidaam cusub oo la yidhaahdo moos waxay qaadatay 15 sano in la dhiso moos waa qaybaha waaweyn ee huruudan ah way kacaan markay biyuhu ay aad u sare maraan sida marka aqualta ay dhacdo oo biyuhu magaaladan qariyaan markaas nidaamkan ayaa la shidayaa kadibna kor ayuu kacayaa sanadkii 2019 fatahaadii ugu xumeyd ee 100 sano jirta ayaa dhacday biyuhu waxay gaadheen 2 mitir 1 mitir iyo badh ilaa 2 mitir halkan wax kasta way burbureen Bags floating in the piazza. shimbiraha seagulls ayaa magaaladan iska leh waa iyaga tani waa magaaladooda inagoo keliya waan soo boqonnay mise jeer ayaad aragtaa baabuur 3 bilood ma arkin baabuur waxaan wici doonaa taxi saaxiibka ayaa la taxi نطلع بتاكسي هسه.
dhammaan dhismayaashu waxay leeyihiin albaab ka yimaada dhinaca doonta iyo albaab ka yimaada wadadan gadaasheeda. maxaad ka malaynaysaa haddii aad leedahay Plaza sidana oo haysata wajahad ku soo jeeda kanaalkan? waxaad haysataa lacag. haddii aad ku nooshahay gudaha magaalada dhexdeeda, runtii inta badan dhismayaashan ma aha kuwa Do you live degaya. inside? You're middle class. Middle. In fact, most of these are not residential. Like this is like a gallery. Gallery. kuwaasi waa waaxda dibdamiska. magaaladan hoosteeda ee sabaynaysa waxaa ku taal kayn roob oo ka kooban malaayiin tiirar alwaaxa. kayntaas oo aan la arki karin, taasoo magaaladan siday in ka badan 10 sano.